السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا علي أكاديمي وعشر كي سجالات عشر كي سجالات revision أما مراجعة عشر كنا وحكوسة بسنجة هي interrogative pronouns قاب سؤالات أما قاب سؤال كلمة اللي استعماله مركب قفقة وحلو يدينيو أينو أجنو تصارع وما حي interrogative pronouns كلمة هن أيها جرامرها وحلا هذا interrogative pronouns مركب حي الصومالي هان كنا غنيان what محي where حاجة how سيدة when goorma which كي أمته why وايو who يا whom يا whose يا له هذا وحين نيجي دونا قيبتها لبعض عشرة تصالة لبقى فوق الشيء سنية يجوا استعمالية كلمة دهن short dialogue وده هي علي أحمد علي you look busy what are you working on waad mashquulsan tahay maxaad ka shaqaynaysaa just finish up writing letter waxaan dhammaynayaa waraaqaan qorayay to whom are you writing to whom are you writing to yaad u qoraysaa to my friend who is in Canada saaxiibkay to my friend who is in abroad to my friend who is in abroad saaxiibkay oo dibadda ku maqan Canada dibadda ku maqan saaxiibkay oo dibadda ku maqan where is he haguu joogaa where is he lives in Canada Canada ayuu degan yahay Canada ayuu degan yahay how did you meet each other how did you meet each other sidee ku kulanteen he was my classmate he was my classmate wuxuu ahaa isku class baanu ahayn when was that goorma when was that goorma it was 10 years ago it was 10 years ago 10 sano ka hor who did he go to Canada with who did he go to Canada with yuu Canada u raacay by himself keligiis which city does he live which city does he live he lives in Toronto wuxuu degan yahay Toronto why did he go to Canada why did he go to Canada Canada muxuu u tegay to study English siduu luqadda Ingiriiska u barto whose pen is this qalinkan yaa iska leh it's mine okay it was nice talking to you wada hadal wanaagsan you too sidoo kale goodbye casharkiina maanta saasuu inoogu eegyahay intaynu ku kulmi doono casharkeena xiga asalaamu calaykum